iyadoo ay fooday nagu soo hayso diyaar galowga xuska maalinta qaran ee 18 May isla markaasina la xusayo sanad guuradii 28aad ee gooniisutaaga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa si weyn looga dareemayaa diyaar galowga xuskaasi magaalada Borama ee caasimadda gobolka AWDAL diyaar galowgaasi ay qayb ka yihiin ciidamada kala duwan ee gobolka AWDAL oo maalmihii ugu dambeysay waday tababaro loogu talagalay xuska 18 May ayaa waxay maanta dhoolatus ay ku muujinayaan diyaar galowgaasi ku soo bandhigeen magaalada Borama qaybta booliska gobolka AWDAL Axmed Maxamuud Guutaalo ayaa ka warbixiyay dhoolatuskaasi iyo ujeedada uu daaran yahay waxana uu sheegay almahanba waxaan wadnay u diyaar garowga 18 May ayaan bariyahanba wadnay ciidan ahaan marka ilaa imika bilowgii bishanba hawshaasaan wadnay haddana waxaanu dhinaca kale ka wadnay u diyaar garowga 18 May oo ah sanadkan ay noqonaysaa sanad guuradii 28aad bay noqonaysaa maantana waxaanu isugu nimi oo khamiisana waxaanu isugu nimi halkan qaybta horteeda garoonka qaybta horteeda ayaa ciidanka booliska iyo ciidanka asluubtu ay isugu tagayeen marka halkaasaanu si aanu bilisu si yara qiyaasno hawshaasaan maanta ku jiray Axmed Maxamuud Guutaale taliyaha qaybta booliska gobolka AWDAL oo hadalkiisa si wata ayaa carabka ku dhuftay in laga wada shaqeeyo nabadgelyada isla markaasina ay si wanaagsan ugu qabsanto xuska munaasibada 18 May kulley ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay nabadgeliyo inoogu dhacdo inay nabadgeliyo inoogu dhamaato insha Allah inay sabtida tahay waan filayaa waxaan leeyahay dadweynahan gobolka mujtamacan gobolka degan ee karaamada leh mar labaad mar saddexaad mar afraad waxaan ka codsanayaa in nabadgelyadooda ay ilaashadaan oo aynu arinta hareeraha la iska taago ugu dambeyntii taliyaha qaybta booliska gobolka AWDAL ayaa shacabka qaybihiisa kala duwan ee magaalada Borama ugu baaqay u bogaadiyay sida wanaagsan ay uga shaqeeyaan nabadgelyada waxana uu sheegay sida tan bulshooyinka reer AWDAL haday tahay salaadiin wax garad cuqaal aqoonyahan dhammaanba mujtamaca ku nool gobolkan AWDAL mahad ballaaran baanu anagu soo jeedinay haddana nahay ciidanka booliska in gobolkani AWDAL uu yahay gobol nabadgeliyo xagga nabadgelyada oo gobol aad iyo aad ugu wanaagsan runtii si kastaba ha ahaatee qaar ka mid ah wasaaradaha laamaha dawladda gobolka AWDAL ayaa iyagu u tafaxaytay isla markaasina dardar galiyay xuska maalinta 18 May kuwaasi oo wada hawlgallo kor loogu qaadayo dabaaldegga sanad guurada 28aad ee gooniisutaaga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa Cabsalaan Saaha telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Borama.